su-aasheedu waxay noqonaysaa maadaama aysan jirin maxkamad dastuuriya oo ku dhawaaqda go-aanka kama dambaysta sidee bay u noqonaysaa natiijada soo baxda mid lagu qanco? su-aasheedu waxay tahay doorashooyinkii la qabay saddexda degmo ururadu waxay usoo kala bixeen ama ugu xoog badnaayeen sida ay laaluush u kala bixinayeen ninkas uu lacag badnaa ugu soo baxay maxay kaga duwan tahay marka dadkii yarka ahaa oo lacagta la siinayay bedelkeeda haddii lacag badan la bixiyo yacni soomaha waxaa soo bixi kara cidda markaas laaluush badan bixisa maxaa isbedelay markaa? madasha gorfeynta geedi socodka dimuqraadiyiinta Puntland oo ay marti ku ahaayeen guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland ayaa looga hadlay ololaha wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyaha doorashooyinka qof iyo codka ah ee loo madlan yahay in laga qabto degmooyinka dhiman ee Puntland. madasha waxaa lagu qabtay jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Garowe waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ardada jaamacadaha oo guddiga halkaasi su'aalo ku weydiinayay. haddaba halkee ay maraysaa hanaanka dimuqraadiyadda Puntland ma jiraan caqabado ku xeeran howlaha doorashada? su'aalahaas iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya oo madasha daahfuray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ee Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid. diiwaangelintu waa waxa ugu horeeya uguna muhiimsan processka doorashada marka laga hadlayo wareegyada saxda ah ay marto marka diyaar garowga iyo wacyigelinta iyo waxaas laga tago. diiwaangelintu waa meesha jaangoysa yaa codaynaya hadhow waxaa la rabaa marka bulshada inay isdiiwaangeliyaan xilliga diiwaangelinta. marka ujeedka kulankan aan uguna muhiimsan waxa weeye in laga qayb qaato diiwaangelinta, in laga qayb qaato doorashada. dhowr sababood ayaa doorashadan in la qabto ay muhiim u tahay ama amraya. marka koowaad sharcigii Puntland lagu asaasay baa lagu qoray in 3 sano kadib dadka iyaga matalaya ay doortaan. midda labaad waa wax caalami ah oo adduunka oo dhan dadku iyaga doorta dadka matalaya meel qof ama dhowr qof wuxuu go'aamisaa ma jirto. midda saddexaad marka laga reebo sharcinimadeeda shuruucdan oo dhan ay ku qoran tahay faa'iidooyin fara badan bay leedahay. dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Garowe oo madasha kalmad ka jeediyay ayaa dhankiisa waxa uu sheegay muddadii ay jirtay Puntland ay 24 sano iyo halka ay maanta joogto in aysan ahayn mid isqabata. waa meel uusan ku qancin qofka Puntlandarka ah ee raba hore inuu u soo socdo. waa meel aan fursad siinayn dadka aqoon-yahanka dhalinyarada dadka dawladnimada waxa weeye wali u hamuun qaba aan fursad siinayn. si marka fursadda loo helo runtii way tahay inaynu barnaamijkan hal qof hal cod aynu taageerno. laakiin waxaan ka hadlayaa hal qof hal cod aan dan kale lahayn. aad baan idin soo dhaweynaynaa guddiga waxaan leenahay soo dhawaada. intaas kadib waxaa la gudagalay weydiimaha su'aalihii qaybaha kala duwan ee bulshada ka imanayay gaar ahaan ardada jaamacadaha oo ay weydiinayeen guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka oo marti ku ahaa madasha. su'aalahaas oo u badnaa doorashada iyo waliba caqabadaha ku xeeran. marka gudoomiye ma moodaa shaqada inay caqabad ku tahay in hore loo socdo arrimaha xuduudaha maxaa idinka qorshaysan in arrintan xuduudaha ee buuqa dheer ka kicisay baarlamaanka qaybtood maanta isaga jawaabayeen in hawsha la soo si degdeg loo soo farageliyo oo macnaha ay dhamaato hawsha xuduuduhu si hore loogu socdo. gudoomiye Cabsaaq sidee ula tacaalaysaa adiga maadaama challengeska muxuu ahaa saaxiibkaaga hore ay la kulmay ay adiga kugu soo socoto sidee ula tacaal lahayd baa u baahannahay? maxaa keenay in sanadadii ugu dambeysay la arki waayo activity-gooda mase la dhihi karaa muddaxilaad xukuumaddan haddeer jirta baa lagu kordhiyay? processkan waa process sharci ah, waa process dastuuri, waa process bulshada maalin kasta community ayaa barashar nagu waxay leeyihiin meel hebla waa inay joogtaa, meel hebla waa in lagu daraa, annaga waxaan rabnaa inaan codayno. waxa ugu weyn oo la tixgeliyo ama la raacano waxa ka mid ah sharciga iyo rabitaanka bulshada. labadaasuna waa jiraan. axdigii ku meel gaarka ee Puntland ee lagu aasaasay sanadii 1998 hadda laga joogo 24 sano ayaa dhigayay in muddo 3 sano gudahood lagu qabto doorasho qof iyo cod ah balse xukuumadihii kala duwanaa ee Puntland muddadaasi soo maray uma suurtagelin in ay hirgeliyaan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo sidoo kale midda madaxweynaha iyo baarlamaanka. su-aasheedu waxay noqonaysaa maadaama aysan jirin maxkamad dastuuriya oo ku dhawaaqda go-aanka kama dambaysta
sidee bay u noqonaysaa natiijada soo baxda mid lagu qanco? su-aasheedu waxay tahay doorashooyinkii la qabtay saddexda degmo ururada waxay usoo kala bixeen ama ugu xoog badnaayeen sida ay laaluush u kala bixinayeen ninkas uu lacag badnaa ugu soo baxay maxay kaga duwan tahay marka dadka yarka ah oo lacagta la siinayay bedelkeeda haddii lacag badan la bixiyo yacni soomaha waxaa soo bixi kara cidda markaas laaluush badan bixisa maxaa isbedelay markaa madasha gorfeynta geedi socodka dimuqraadiyiinta Puntland oo ay marti ku ahaayeen guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland ayaa looga hadlay ololaha wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyaha doorashooyinka qof iyo codka ah ee loo madlan yahay in laga qabto degmooyinka dhiman ee Puntland. madasha waxaa lagu qabtay jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Garowe waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ardada jaamacadaha oo guddiga halkaasi su'aalo ku weydiinayay. haddaba halkee ay maraysaa hanaanka dimuqraadiyadda Puntland ma jiraan caqabado ku xeeran howlaha doorashada? su'aalahaas iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya oo madasha daahfuray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ee Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid. diiwaangelintu waa waxa ugu horeeya uguna muhiimsan processka doorashada marka laga hadlayo wareegyada saxda ah ay marto marka diyaar garowga iyo wacyigelinta iyo waxaas laga tago. diiwaangelintu waa meesha jaangoysa yaa codeynaya hadhow waxaa la rabaa marka bulshada inay isdiiwaangeliyaan xilliga diiwaangelinta. marka ujeedka kulankan aan uguna muhiimsan waxa weeye in laga qayb qaato diiwaangelinta in laga qayb qaato doorashada. dhowr sababood ayaa doorashadan in la qabto ay muhiim u tahay ama amraya. marka koowaad sharcigii Puntland lagu asaasay baa lagu qoray in 3 sano kadib dadka iyaga matalaya ay doortaan. midda labaad waa wax caalamiya oo adduunka oo dhan dadku iyaga doorta dadka matalaya meel qof ama dhowr qof wuxuu go'aamisaa ma jirto. midda saddexaad marka laga reebo sharcinimadeeda shuruucdan oo dhan ay ku qoran tahay faa'iidooyin fara badan bay leedahay. dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Garowe oo madasha kalmad ka jeediyay ayaa dhankiisa waxa uu sheegay muddadii ay jirtay Puntland ay 24 sano iyo halka ay maanta joogto in aysan ahayn mid isqabata. waa meel uusan ku qancin qofka Puntlandarka ah ee raba hore inuu soo socdo. waa meel aan fursad siinayn dadka aqoon-yahanka dhalinyarada dadka dawladnimada waxa weeye wali u hamuun qaba aan fursad siinayn. si marka fursadda loo helo runtii way tahay inaynu barnaamijkan hal qof hal cod aynu taageerno. laakiin waxaan ka hadlayaa hal qof hal cod aan dan kale lahayn. aad baan idin soo dhaweynaynaa guddiga waxaan leenahay soo dhawaada. intaas kadib waxaa la gudagalay weydiimaha su'aalihii qaybaha kala duwan ee bulshada ka imanayay gaar ahaan ardada jaamacadaha oo ay weydiinayeen guddiga ku meel gaarka ee doorashooyinka oo marti ku ahaa madasha. su'aalahaas oo u badnaa doorashada iyo waliba caqabadaha ku xeeran. marka gudoomiye ma moodaa shaqada inay caqabad ku tahay in hore loo socdo arrimaha xuduudaha maxaa idinka qorshaysan in arrintan xuduudaha ee buuqa dheer ka kicisay baarlamaanka qaybtood maanta isaga jawaabayeen in hawsha la soo si degdeg loo soo farageliyo oo macnaha ay dhamaato hawsha xuduuduhu si hore loogu socdo. gudoomiye Cabsaaq sidee ula tacaalaysaa adiga maadaama challengeska muxuu ahaa saaxiibkaaga hore ay la kulmay ay adiga kugu soo socoto sidee ula tacaal lahayd baa u baahannahay? maxaa keenay in sanadadii ugu dambeysay la arki waayo activity-gooda mase la dhihi karaa muddaxilaad xukuumaddan hadeer jirta baa lagu kordhiyay. processkan waa process sharci ah waa process dastuuri waa process bulshada maalin kasta community ayaa barashar nagu waxay leeyihiin meel hebla waa inay joogtaa meel hebla waa in lagu daraa annaga waxaan rabnaa inaan codeyno. waxa ugu weyn oo la tixgeliyo ama la raacano waxa ka mid ah sharciga iyo rabitaanka bulshada labadaasuna waa jiraan. axdigii ku meel gaarka ee Puntland ee lagu aasaasay sanadii 1998 hadda laga joogo 24 sano ayaa dhigayay in muddo 3 sano gudahood lagu qabto doorasho qof iyo cod ah balse xukuumadihii kala duwanaa ee Puntland muddadaasi soo maray uma suurtagelin in ay hirgeliyaan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo sidoo kale midda madaxweynaha iyo baarlamaanka.